akaadamiyadda nabadda iyo horumarinta Soomaaliland oo in muddo aba ka shaqeynaysa arrimaha maamulka dhulka ayaa waxa ay cilmi baadhis ka sameeyeen gobolada iyo deegaanada Soomaaliland waxaana lagu ogaanayay in la sameeyo siyaasad guud oo qaran oo hagta maamulka dhulka dib u eegis lagu sameynayo xeerarka lagu maamulayo dhulka iyo fulinta shuruudaha oo iyaguna loo baahan yahay in la xoojiyo isla markaasna kor loo qaado iyada oo laga duulayo fulinta digreetada madaxweynaha Soomaaliland ayaa shir arrimahaasi lagaga hadlay waxa isugu yimid wasaaradaha ay khusayso oo ay ugu horeyso wasaaradda hawlaha guud wasaaradda deegaanka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda qorsheynta qaranka wasaaradda beeraha wasaaradda macdanta iyo tamarta wasaaradda biyaha wasaaradda arrimaha gudaha guddi hoosaadka golaha wakiilada iyo waliba UN Habitat waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha akaadamiyadda nabadda iyo horumarinta Soomaaliland mudane Maxamed Faarax Xirsi inaanay kulba hay'adii lacag siiyay inta inoo timaado aanay oran ana policy baan wada ana workshop baan wada waxaan doonaynaa inay noqoto nationally driven process inay noqoto inagu aynu leenahay inagu aynu hogaaminayno akaadamiyaduna waa national organization maxalliya ma aha mid international mid national weeyaan sida wasiiradu ay ka dhawaajinay soo jeediyeen intii wasiiradu ma dul maraya in shirka April soo socda insha Allah billahi kariim aynu diyaar garowno in wasiiradu anagoo si dhow kula shaqeyn doono wasaaradda hawlaha guud hawsha qaabilsan in tag teamskii farsamada ay effective noqdaan shaqeeyaan hawsha ay galaan oo wasaaraduhuna ay soo magacaabaan akaadamigu waxaan anagu la taaganahay oo aanu doonaynaa inaan ku caawino as secretariat wixii kharash ku bixi lahaa wixii wax ku bixi lahaa waxaan haynaa shaqaale ka badan 50 adduunka oo dhan isaga kala yimid khibradda iyo aqoonta iyo dhaqaalihiiba waynu haynaa in laga faa'iideysto oo aanay naga khasaarin maalinna aanay naga khasaarin marka akaadamigu inuu secretariatka inoo noqdo maalin kastaba aan update garan shirino wixii aad u baahan tahay keeno iminkana looyaradii way shaqo galeen oo waxay ka shaqeynayaan in xeerarkii ay eegaan dib u eegaan in arinta ugu muhiimsan ee aynu soconnaa ma aha policy ma aha xeer intaa wala sameyn karaya arinta ugu muhiimsan waa enforcement way dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland injineer Xuseen Cabdi Ducaale technical teams wasaaradda oo dhignaynta ay sii shiraan qof wasaaradda walba ay soo diyaargarayso wax awliyaadkeeda iyo ahmiyadda iyo talooyinkeeda yihiin technical teams iyo qolada hogaaminaysa shirka ay markaa ajenda sugan oo action plan ka soo baxo markii laga soo shaqeeyo April 15 wax bay laga xigaan shirkan oo muddo socday ayaa waxa ugu dambeyntii la isla gartay in shir ku saabsan arrimaha maamulka dhulka oo qabanqaabadiisa akaadamiga nabadda iyo horumarinta Soomaaliland ay ka wadaan magaalada Burco laga wada qayb qaato sidii xal waara looga gaari lahaa mushkiladaha ka taagan dhinaca dhulka ونجيب عبد الولي عبد الحسين تلفزيون كعالمي يونيفرسال مقالة هرقيسان